wacan oo wanaagsan mar kale akhyaartayna daawatay ku soo dhawaada barnaamijka xaqiiqda iyo xogta daahso waxa idin soo gudbinaya anigoo ah Abwaan Xarago wararka naga soo gaaraya deegaanka Faxfaxdhuun ee gobolka Gado ayaa sheegaya in ciidamada Kenya ay maalintii shalay isaga baxeen halkaasoo ay ku dileen taliyihii deegaanka Faxfaxdhuun ayna ku dhaawaceen abaanduulihii ciidanka xoogga dalka ee Faxfaxdhuun arintaasi ka dhacday deegaanka Faxfaxdhuun dowladda Soomaaliya wax ma ka ogtahay Kenya maxay uga jawaabaysaa dhibaatada ciidamadoodu ay u geysanayaan ciidamada Soomaaliya waxa kale oo ay horay u sii ka haysteen ciidamada Kenya ilaa 120 askari oo ay hubka dhigis ku sameeyeen sida uu inoo xaqiijiyay Cornel Aadan Axmed Xirsi Rufle inay ciidamada Kenya dileen taliyihii ciidanka xoogga dalka deegaanka Faxfaxdhuun ee gobolka Gado waxayna dhaawaceen abaanduulihiisii waxaana hadalkiisii kamid ah Cornel Aadan Axmed Xirsi Rufle كايا markay shalay Faxfaxdhuun ka guureysay ciidankaas saraakiishiisii waxay soo joodiyeen inay ayagu ciid leeyihiin oo harayaan oo ay biirinayaan difaaca baardheere saraakiishii ciidanka xukuntay waa loo yeeray meel ciidanka ka baxsan baa loogu yeeray si shir loola qaato arinta looga qanciyo ka bacdina meeshaas waxa lagu dilay taliyihii horinta Faxfaxdhuun ninka la yiraahdo Garaad waxa la dhaawacay abaaduulihiisii ciidankii meeshaas joogayna hubkii baa laga dhigay ayagoo maxaabiis ah dalka Kenya la aaday adeer intaan ka warqabno meeshaas labada sarkaal ciidanka xukunta looga yeeray waxa la dilay taliyihii ciidanka ninka la yiraahdo Garaad Faarax Warsame waxa la dhaawacay abaaduulihiisii oo la yiraahdo Xasan Cabdi Maxamed labada nin waa dhimasho ninna waa dhaawac ciidankii intii horintii inteedii kalena qalabkii baa laga dhigay shan gaadiida oo ay labana transportation oo baabuurta waaweyn yihiin min saddexna ay yihiin technique iyo ciidankiina maxaabiisaan baa loola tagay adeer waa horin weeyo 120 ilaa 110 inta u dhaxaysa way ragaas horin meesha deganayd bay ahayd sidoo kale korneylka ayaa tibaaxay ama carrabaabay in ay wali halis ku jiraan cutubya ka tirsan ciidamada militariga dawladda Soomaaliya xagee bay joogaan ciidamadaas yaa u taliya goobahay ku sugan yihiin mar kale waxa inoo faahfaahinahay isla Cornel Aadan Axmed Xirsi waxa kale oo hadda halis ku sugan horintii deganayd degmada deegaanka Buusaar iyo ururkii deganaa degmada Ceelwa dilka ay u geysteen ciidanka Kenya taliyaha xoogga dalka Soomaaliya deegaanka Faxfaxdhuun ee gobolka Gado ayaa imaanaya xilli horaantii bishan ay dawladda Kenya ay sheegtay in ay xiriirka u jartay dawladda Soomaaliya ka gadaal isqabqabsi badeed ee u dhaxeeya labada dal dawladda Kenya ayaa caadaysatay dhibaataynta ummadda Soomaaliyeed waxayna horaantii bishii hore burburiyeen qaybo kamid ah xarumaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Soomaaliya waxayna inta badan laayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee ku sugan gobolka Gado dawladda Kenya ayaa u muuqata inay bilowday dagaal daandaansi muujinaya kuwaasoo ay ku daandaansanaysa dawladda Soomaaliya haddaba ma la oran karaa waxa bilowday qaybta koobaad ee dagaalka u dhaxeeya labada dal Kenya iyo Soomaaliya maadaama ay dileen taliyihii xoogga dalka ee deegaanka Faxfaxdhuun ee gobolka Gado ayagoo sheegay in ay xiriirka u jareen dawladda Soomaaliya intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka xaqiiqda iyo xogta daahso waxa idin soo gudbinaya anigoo ah Cabdi Xasan Xarago oo loo yaqaan Abwaan Xarago intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh